falanqaynteena waxaan ku bilaabaynaa DXY-ga si aan ugu filter garayno Euro USD iyo lacagaha dollarka ula socda markaa jihadeeda si aan ku ogaano Euro USD iyo USD CHF intaba si aan u aragno markaa xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waxa dhici doono wejiga dambe lacagta ay noqon doonto. Meeshaan waa higher-keeni, halkan waa low-keeni, rail-keeni uu ku taagan yahay. Price-ku wuxuu soo jebiyey correction-keena. Waxaan ognahay inaan haysano impulsive correction, impulsive. Waxa hadda dhici doona maxay tahay mar waliba oo suuqu uu ku sugan yahay nature ama weji uu ku sugan yahay mar waliba suuqu wuxuu sameeyaa laba weji. Labadaas weji waxay yihiin impulsive phase iyo corrective phase. Impulsive phase-ka marka uu lacagta ku sugan tahay in aad ogtahay nature-ka impulsive-ka lacagta markii ay ku sugan tahay in uu imaan doono corrective phase inuu imaan doono sida halkan kaaga muuqato mar waliba suuqu markuu dhaqaaq sameeyo ama steep flag ha sameeyo ama tight flag ha sameeyo ama large flag ha noqoto mar waliba suuqu wuxuu ku qasban yahay in uu isdhamaystiro ama in uu nasto si aad u fahanto waxa dhici doono mustaqbalka waxa ay noqon doonaan. sidaas darteed waxaan haysanaa impulsive correction, impulsive waxaan sugayno maxay tahay qaab noocee ayaan lacagta ula falgeli doonaa xaaladeedana sidee ayay noqon doontaa. waxa aan filaynaa dartaan waa in uu correction yimaado. correction uu imaanayo qaab uu dhaqmi lahaa iyo sida uu noqon lahaa haddii aan intaan jarno kale haddii aan helno corrective noocan oo kale ah kadibna trade lane-keena halkan uu inoo qabto waxaan arkaynaa in aan helayno continuation halkan selkeeda in aan keeno ilaa iyo double bottom-keena kadibna structure noocan oo kaleeta ah in aan helno qaab noocan oo kaleeta sida price-ku uu isku dhamaystiro ayaan arkaynaa. DXY-ga xaalad noocan oo kaleeta ayaan ka filaynaa in uu la yimaado balse maxaa kale uu samayn karaa DXY-gu waa muhiim in noocan oo kaleeta uu sameeyo halkan in uu flag yar ka dhiibto kadibna qaab noocan oo kaleeta double bottom-keena uu tago amaba in uu halkan haddii aan tagno 4 hour oo kale si aan u filter garayno maadaama high time frame-ka aan joogno in noocan uu flag ku samaysto kadibna uu buy siyaado oo waxaan fiirinayna balse mar waliba haddii aan tagno daily-ga waxaad arkaysaa inaan ku sugannahay impulsive phase waxaan sugaynaa waa corrective phase kadibna in aan sii aadno downside oo jihada sell-ka aan sii raacno. Euro USD ayaan fiirinaynaa iyo message-ka hadhow aan fiirin doonaa insha Allah. Euro USD maxaan ka raadinaynay toddobaadkan xaaladeedu sidee hadda maxay ku sugan tahay maxaanse ka filaynaa in ay Euro USD ku dhaqanto wejiga labaad oo ay ku sugan tahay. waxaan haysanaa impulsive phase waxaan ognahay meeshaan in ay ahayd meel aan ka raadinaynay jihada sell-ka balse mar waliba istiraatiijiyadeena iyo qaabkaan u trade garaynaa waxay tahay wejiga lagu tegay double top-ka waa inaan ogaano. cashir aad iyo aad u muhiim ah oo waxaad baran doontaa ku saabsan areadan middle-ka ah markuu ku sugan yahay sidaad ula falgeli lahayd sidaad intrigaada aad uga qaadan lahayd balse muhiimadda waxay tahay impulsive phase-ka markaad hesho sidaad halkan ka heshay impulsive phase-ka corrective phase halkan inaan haysano impulsive meeshaan haddii aan ka helno correction ma dhici kartaa in gebi ahaanba inaan ignore garayno double top-keenaas oo qaab noocan oo kaleeta large flag intuu samaysto kadibna uu buy sii aado Euro USD waa wax macquulo laakiin hadda meeshee halkee ayaan ka filaynaa lacagta in ay tagto qaab noocee ayaana sit up-keena u diyaarsanaynaa 4 hour-ka ayaan tegaynaa waxaana idin tusayaa behavior lacagtu ay leedahay iyo waxa ay ku dhaqmi doonto ama waxa ay ku dhaqanto mar waliba Euro USD sanadihii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay xaaladeeda inta sida ay ahayd iyo waxa markaa aan ka filayno wejiga labaad oo ay lacagtu samaysan karto waa muhiim. meeshaan waxaan arkaynaa inaan haysano 2-touch 3-touch-keena in uu yahay rail lane-keena meesha ku beegan halkan sidoo kaleeto waxaan arkaynaa in aan haysano 1-2 meeshaan middle section-ka aan haysano hadda waxaan rajaynaynaa in lasii buush gareeyo kadibna 3-touch-keena inaan soo buuxino 1-2-3 double top-keena risk entry-ga waa meel aan ka qaadan karno haddii aan tagno halkan yuusan cabsi kaa reebin meelahan oo kale marka uu yahay price-ku waa meel 100% anagu suuqa aan ka galno oo aan trade-ka ka qaadano haddii aan halkan ka helno ilaa iyo trade lane-keena 250 pip in aan ku manage garayno siina socono ilaa iyo low-geena double bottom-ka in uu price ku yimaado qaab noocaas oo kaleeta ayaan fiirin doonaa balse hanuu yimaado suuqa oo entry-geena halka 3-touch-ka haddii uu naga siiyo waxay noqonaysaa high value area oo ah in aan trade-kii ka qaadano. maxaa kale oo dhici kara halkan oo aan ka fiirinaynaa in price-ku qaab noocan oo kale ah flag haddii aan helo sidee ayay noqonaysaa. flagan halkan haddii aad ka hesho qaab noocan oo kaleeta flag inaad u hesho kadibna inuu impulsive yimaado
kula laabto halkan falaag ka sameeyo qaab noocan oo kale taa meeshaan ma aha meel aan falaag ka qaadan doono kana seel garay doono suuqa sababta ay ku dhacaysaa waxay tahay even halkan markuu kuu saaran yahay trade lane-kaaga cashirka xataa youtube-ka haddii aad ka daawatay cashirkii ahaa qaababka trade lane iyo rail lane aan u sawirano oo nature-ka suuqa uu ku sugan yahay marka aan fiirinayno corrective-ka marka uu yahay for example halkan oo kale haddii aad fiirinayso trade lane-kaaga qaab noocan oo kale taa inuu ahaa noocan oo kale inuu kugu yaalay 1 2 3 in halkan correction-kaaga lagu galay kadibna impulsive inuu yimid halkan inaad correction kasii heshid kadibna aad usii qaadatid jihada selka waad saxan tahay laakiin psychology-ga iyo waxa uu kaa caawin doono cashirka fikirka psychology-ga markaad qaadanayso trade-ka inaad ku fikirto muhiimaddu ay leedahay waxay tahay meeshan waxaad ogaan doontaa corrective phase-ka marka lacagtu ay ku sugan tahay still in halkan marka uu price-ku ku samaysto correction uu jabiyo kadibna in uu retrace kugu sameeyo qaab noocan oo kale tahay ilaa markaas aad ogaato halkan in ay noqoto middle sectionkii lacagta oo aad soo guuriso trade lane-kaaga oo aad halkan ku qabato qaab noocan soo kale tahay expandkaada strategy-kaada in la soo dhamaystiro oo aad hadhow dhaado beeshin maxaan u noqon waaye halkan inay lacagta imaanayso waan ogaa meeshan 1% loss maxaan u qaatay strategiyadeena iyo qaabkaad u lose garayn lahayd xataa haddii aad trade qaadato 1% loss qaabkaaga si aad scaling ugu samayso akoonkaaga oo aad u koriso intaba strategiyada iyo casharada duuban way ku jiraan waana ka faa'iidaysan doonta maxaan ka fiirinaynaa marka strategy-keena halkaa waa ka fiiri doonaa balse muhiimadda aan ku qaadan doono lacagtan oo middle section-kan gebi ahaanba halkan uu ka imaanayo waxa la yidhahda pattern separation-ka isagana uu aad iyo aad kuu anfici doonaa waxay tahay meeshan haddii aan ka helno falaag rasmi ah haddii aan ka helno halkan in lacagtu qaab noocan oo kaleeta ay u dhaqanto kadibna in ay laabato tan waa qaadan doonaa haddii uu falaagu kala saarmo ee uusan noqonin kii hadda aan kuu soo sheegayay oo kale taa haddii aan laabano waxaan arkaynaa halkan oo kale meeshan oo kale lacagtaana waan soo diray iyadoo live ah way taallaa waxaan rajaynaa in aad daawan doonto meeshan in aad heshay impulsive waa psychology ahaanta qaabka aad u fikiraysid oo aad ku khasaaraysid meeshan correction in ay tahay halkan oo kale in aad ka qaadatay trade-kaaga yaan dhaano cashir ha noqdo laakiin insha allah soo laabanayna haddii uu baana noocan oo kaleeta inaad u dhigantay targetkaaga lowgaaga oo kale in aad saaratay kadibna price-ka wuxuu kugu sameeyey in uu baxay oo kadibna kugu dhuftay sidaa si la mid ah halkan haddii aad falaag noocan oo kaleeta aad ka hesho oo aad kan heli weysid falaag kala saaran oo mini double top oo kaleeta halkaas aad ka heli weysid balse qaab noocan oo kaleeta intii uu sameeyo impulsive yar intuu kugu baxo kadibna retrace uu sameeyo halkan corrective kadibna strategy-kaagaas uu soo dhamaystiro waxay noqonaysaa marka inaadan psychology ahaan diyaarsanayn oo aad u baahan tahay marka in aad sugto labadaas weji ayaan ka fiirinaynaa euro USD waxaan tegaynaa lacagta kale oo fursaddu ay ka muuqato JBP JPY waxaan soo dirnay lacagtan ayada oo halkaa maraysa waxayna hadeertaan dhacday 500 oo pip way duuban tahay waana maxay ahayd wax aad dib u daalacan karto angalka lacagta ay samaysanayso iyo qaabka ay u samaysanayso mar waliba waa muhiim in aad fahanto middle section-ka mar waliba pattern uu samaysmayo waxa samaysma waa middle section waxa aad ku aaminaysa lacagtaas in uu pattern yahay continuation pattern-kaas middle section-kiisa markaad garato waxaad ogaanaysaa lacagtu inay angle samaysanayso angalkaasna ay tahay meesha laga soo sell garayn lahaa si kale haddii aan u dhigo impulsive-kan halkan ka baxay correction-kiisa meeshan waxaad arkaysaa in uu yahay head and shoulder oo aad ku qaban karto neckline-ka marka la jabiyo ilaa impulsive-kaas halkaas oo kale wax hadda aan sugayno fursadda ka bannaan waxay tahay JPY in aan helno falaag kadibna falaagaas in aan soo sell garayno haddii aan 1 hour ka tagno falaag noocan oo kaleeta haddii aan helno 1 2 3 waxay noqonaysaa markaa in aan risk entry-geena halkaan ka soo qaadano waana wax dhow oo si dhow u dhici doona JPY marka haddii aan risk entry-ga halkaan ka hesho ka qaado duu price-ku kugu yimaado marka waxaan arkaynaa risk entry haddaan dhigano stop 30 pip ilaa iyo markaa lowgeena oo ah correction-ka meesha trade lane-keena noo yaalla waa 200 oo pip 200 oo pip trade lane-keena ayaan la soconaynaa oo ah meesha hadeertaan lacagtu ay tahay janalkan samaysmay in la sii jabiyo oo rail lane-kaaga la yimaadana taa waa waxa aan fiirinayno ilaa 1300 oo pip inay soo dhacdo balse haddii aan daily-ga tagno
halkan waxaan ka arkaynaa oo aan tirno gebi ahaanba trade lane-keena si aad u ogaato price actionka mar waliba in aad message ka qaadato suuqa waxa uu ku siinayo ugu message ayuu ku siinayaa suuqa oo ah iga joog ha gelin gal oo entry ayuu leeyahay labadaas waji ayaad suuqa ka helaysaa laakiin haddii aad qasabto adiga sida aad ka dhiganayso suuqa mar waliba ma noqonayo taa ayaa muhiim ah halkan inuu yahay impulsive correctionkiisa markaad hesho lowga in uu yimaaday taa waxay ka dhigan tahay in aan haysano large correction kadibna continuation oo aadan u baahnayn keliya in aad fiiriso in aad double bottomkaadaas qaab noocaas oo kaleeta aad ku timaado meeshaan psychology ahaanta ku jirto iyo sirta ku jirto kale waxay tahay double topkaagaas ama raylinekaaga meesha uu ku yaallo waxaad arkaysaa in priceka uu jebiyey haddii aan tirno waxaan arkaynaa priceka in uu jebiyey taa oo micnaheedu yahay haddii aad ku trade garaynayso support and resistance ama aad is leedahay priceka wuu jebiyey kadibna wuu sii socon doonaa wuu jebiyey kadibna wuu sii socon doonaa oo buy ku sii socon doonaa istiraatiijiyadana mar waliba waxaan ka sheekaynaa maxay tahay mar waliba oo double top la jebiyo ama rayline meel uu ku yaalla double bottom waxa aan sugno waxay tahay priceka in uu jebiyo kadibna retrace uu samaysto retracekaasna waxaan qaadanaa falaagiisa oo waxaan u qaadanaa jihada selka marka halkan trade line ayaa ku jiro sida hadday aan ku soo sheegay oo ah meeshaan in ay tahay channel middle section halkan uu yahay ogow meeshaan marka reversal suuq uu ka samayn karaa waa inaad ku manage garaysato markuu impulsive ka soo dhaco isla markiiba entry-ga keenso oo maxay ahayd break even isticmaal si uusan khasaare ku gaarsiinin oo waxaan u malaynayaa lacagtan ilaa iyo arbacada way dhaqaaqi doontaa oo trade line-kaaga way tegi doontaa marka ilaa fursadaad haysataa oo aad trade-kaada ku manage garayn lahayd JBP JPY intaas ayaan ayadana uga gudbaynaa intrigaadana qaabkaas ayaad u raadsan doontaa USD CHF waxay la ciyaaraysaa DXY-ga waxa aan hadda ka fiirinayna lacagta waxay tahay maadaama aan jebinay lowgeena oo double bottomka kadibna retrace aan helnay waa tii hadda aan kuu soo sheegay ee ahayd JBP JPY wax badanna aan soo marnay lacaga qaab noocan oo kaleeta life aan u falanqaynay xaaladda ay ku dambeeyeenna aan ogeyn waxa macnaha dhacay next oo ahay suuqi waxa ka dhici doono marxaladda labaad wajiga labaad ee uu la imaan doono waxaan aragnay in impulsive ahaan loo jebiyey retrace inuu dhacay falaagan haddii aan helno ayadana intrigeena halkaa ayaan ka qaadanaynaa oo jihada bayda ayaan usii raacaynaa USD CHF ayadana way noo bisishahay oo waxaan filaynaa keliya in aan helno falaagaas kadibna aan sii raacno haddii aan tagno dailyga maxaa confirmation ah oo aan ku galnaa suuqa mar waliba haddii aad casharadii daawatay keliya youtube-ka oo ay ku anficeen kandalkan ma ku soo aragtay oo markaan ka hadlaynay kandalada wax reversal gareeya ma soo aragtay markaadse adiga wax analyze garaynayso kandalada ma aragtaa mase weli humaag ayaa kaaga jiro morning starkan waxaan ku falanqaynay oo casharada youtube-keena ku jiro ayuu ka mid yahay waxaadna kugu soo fasiray oo aan kugu soo sheegay mar waliba morning starka in jihada bayga ah uu suuqii u dhaliyo uu yahay reversal marka aad ka hesho low of the structure ama markaad hesho in double bottom la jebiyey oo kale qaab noocan oo kaleeta evening morning stark marka u hesho in aad jihada bayda in uu suuqii aadayo in aad dareemi kartid kow in uu noo yahay structure-ka waxa koowaad ee suuqa annaga aan confirmation-ka ka qaadanayno in uu yahay structure-ka wax labaadna in ay yihiin candlestick-ga marka uma baahnin annaga inaan wax kale iyo awood kale inaan isticmaalno labadaa oo aan fahanno way nagu filan yihiin marka morning starkan halkan message ayuuna siinayaa jihada bayda in uu suuqii aadi doono intaa ayadana kusoo gabagabaynayo USD CHF AUD NCD ayaan fiirinaya AUD NCD waxaan ka filaynay toddobaadkii hore message-ka lacagta idinkaga soo dirnay wax waliba haddii aad tagto dailyga waxaad arkaysaa double top-kaada structure 1 2 3 ah in loo tegay meeshaan marka waxaa kugu jiro sir aad iyo aad u muhiim ah waxaan kuu soo sharaxnay sida loo jebiyey double top-ka oo ahayd in impulsive oo aad hadda soo aragtay kadibna inaan helno retrace falaageennana in aan ka qaadano intriga oo aan jihada selka u raacno waxa kale oo aad aragtay in aan u tagno qaab noocan oo kaleeta ah oo ah corrective ahaan in loo jebiyo corrective-kaasna aan helno impulsive-ka koowaad inaan sugno kadibna aan falaaga qaadano waa labadaas way waxa kale oo aad arki doontaa in badan hadda waxaad arkaysaa in meesha uu three touch-ka ka dhacay iyo meesha haddeertan three touch-ka aan ka haysano iyo rayline-ka double top-ka in ay isqabteen oo 1 2 3gaas aad arkayso in structure ahaan loo tegay marka corrective ahaan marka loo tago iyo impulsive ahaan marka loo tago labadaba waxaan sugnaa impulsive-ka ayaan sugnaa
dhuux hadalkayga labadaba impulsive-ka ayaan sugnaa balse haddii aan u tagno structure ahaan haddii aan u tagno structure waxaa leedahay qaabka markuu suuqu isku dhammaystirayo labo halkan markuu soo marayo mar saddexaad uu dhammaystiro waxaad arkaysaa in structure ahaan loo jebiyey kan oo kale haddii aan jarno oo aan halkan geyno ayadoo live ahna aan ku tusi doono waxaad ogaanaysaa double topkaas inaadan walwalaynin suuqii buy muusan aadin ee structure ahaan ayuu isku soo dhammaystiraya kadibna sell ayuu soo aadaya marka mar waliba iyo marxalad waliba oo aad aragto waa muhiim in aad ku baraarugsan tahay oo aad og tahay waxa dhici doona mustaqbalka iyo waxa xigo ay lacagta soo wado nature-ka oo aad fahanto faa'iidadaas ayuu leeyahay iyo qaababka loo tago top of the structure iyo low of the structure markaad joogtid waana meelaha trade-ka markaad kasoo qaadato in muddo ah aad haysan doonto intaas waxaan uga gudbayaa sharaxaadii iyo in aysan ku dhibi doonin markaad aragto qaab noocaas oo kaleeta in suuqii loo tegay double topkaad oo kale oo aadan emotion ku noqonin marka hadda laba weji ayaa nooga furan AUD NCD labada weji oo noo furana waxay tahay halkan in aan ka helno impulse corrective aan in aan u tagno kadibna meeshaas in aan ka helno reversal haddii ay noqoto meeshan corrective ahaan in loo tago qaab noocan oo kaleeta ah mini running journal oo kaleeta inuu yahay ayaan arkaynaa halkan waa ka qaadan kartaa marka oo impulsive-keena waxa waaye waa qaadanaynaa risk entry halkaa waa ka qaadanaynaa laakiin haddii dhici weyso in aan taa helno oo impulsive ahaan loo jebiyo halkan qaab noocan oo kale ah impulsive ahaan loo jebiyo halkan marka tan ayaa waxay ka muhiimsan tahay tii hore ee tight-ka ahayd meeshan waxaan arkaynaa marka in aan haysano 1 2 3 halkan trade line-kaaga in uu yaallo risk entry-ga halkan marka shaki la'aan in aad soo qaadato corrective ahaan marka loo tago suuqa waana wax muhiim ah oo aysan cabsi suuqii kaa saarin ilaa iyo lowgeena 9 pip ilaa in lasii jebinayana waa ogna wajahada selka AUD NCD ay sii aadi doonto macquul ma tahay in ay double topka mar labaad ku ay soo dhammaystirto oo ay sell soo aado taa waxaan fiirinayno oo macquul ah markaana waxay noqonaysaa halkan in uu pattern separation ka dhaco oo gebi ahaanba sweep noocan oo kaleeta uu yimaado corrective aan oo arc formation halkan aan ka helnay kadibna aan kasoo sell garayno balse tan forecasting-kaaga ha ku xisaabtamin haddaana ku darin ee message-ka suuqa uu ku siinayo bal horta fiiri entry-gaaga halkan ka fiirso entry-gaaga halkaas haddii aad ka weyso corrective aan oo impulsive aad aragto qaab noocan oo kaleeta ogo treatage-kaaga in lasoo dhammaystirayo kadibna soo sell garay labadaas weji ka fiirso haddii ay wax isbedelaanna waa ku update garaynaynaa oo telegramkeena groupka telegramka muuqaalka mar waliba waa soo dhigaynaa waana ku update garay doonaa lacagta intrigeeda iyo sida aad ula dhaqmi lahayd waa muhiim AUD cat maxay samaynaysaa iyadana xaaladeedu waa sidee in cashirkan aan ku fogaado muhiim ma aha laakiin AUD cat meeshan intaanba haddii aad aragto waxaad arkaysaa lacagtu inay pattern separation in ay ku socotay dailyga haddii aan tagno si aan sawirka guud u aragno euro cat gebi ahaanba waxa ay samaynayso weekliga ama dailyga waxay kaa caawinayaan impulsive-ka markaad hesho retrace-kaas annagu aad iyo aad ayuu muhiim noogu yahay candle-ka marka uu retrace yahay mar walibana waxaan ka hadalnaa retrace candle-ka iyo qaabkaad ula macaamili lahayd oo waxaan ognahay mar waliba retrace candle-ka markuu yimaado in jihadii markaas buyda ahayd ama sell-ka ahayd in ay wax iska bedeleen in aad ogaanayso marka treatage-keena ayuu soo sameeyey continuation marka 1 hour haddii aan tagno waxaa deertaan aan raadinaynaa waxay tahay in aan helno flaggeena haddii aan 15 minute-ka tagno qaab noocan oo kale ah ama haddii lagu laabto halkan for example price-ku qaab noocan oo kaleeta ayuu ku furmay halkan muusan xushmaynin double topka weli wuu baxay oo halkan ayuu tegay sidee ayaan ula macaamilayaa kan marka wuxuu noqonayaa in aad halkan haysato falcon flag kadibna meeshan aad kasoo sell garay karto ay tahay area markaad ku aamini karto intrigaada in aad ka qaadato balse qaab noocan oo kale hadduu suuqu u laabto soo laabto mar saddexaad halkaas tago tan marka way kaaga muhiimsan tahay wax waliba oo risk intrigaada treatage-kaas halkaas ayaad ka qaadan doontaa euro cat ayadana isha ku hay jihada selka ayaan mar waliba la socon doonaa oo aan fiirin doonaa haddii wax isbedelaanna oo ku update garaynaynaa balse euro cat sidaa ayay ayadana xaaladeeda noqon doontaa dailyga haddii aan tagno JBP USD waxaan arkaynaa angalkii in ay samaysato lacagto in ay kadibna soo daadatay JPY iyo JBP USD isku wax ayay samaynayaan ama isku structure ayay ku jiraan 4 hour haddii aan tagno ayadana waxaan arkaynaa aan trade line-keena ku sinno halkan 1 hour
JPY haddii JPP USD haddii aan halkan waxaa laga yaabaa in aad ka timid istiraatiijiyad kale oo ay kugu cusub tahay market structure-ka ama meelo kale aad wax ka fiirinayso balse muhiimadda iyo waxa annaga aan fiirinayna waxay tahay keliya inaan isticmaalayno waxa uu price action ku samaynayo waxaan ku isticmaalaynana waa trade lane-ka iyo trade lane-ka keliya waxa imaan doonana waxa noo sheegaya waxay tahay message waxa aan ka qaadanayno waa suuqa halkan waxaa arkaysaa inuu impulsive yahay meeshan 15 minute haddii aad ku filter garayso waa stiff flag halkan waa impulsive waxa aan sugayna hadeertaan waa correction kadibna in aan helno continuation noocan oo kaleeta in aan u sell garayno balse meeshan suuq haddii uu ku furmo qaabka uu hadda ku socdo candle-ka for example haddii aan jiro oo kale oo aan waxba ku sawirin sidan oo kale suuq haddii uu ku socdo sidan oo kale haddii uu ku socdo suuqa qaab noocan oo kaleeta uu yimaado kadibna baxo laabto treatage noocan oo kaleeta hadduu sameeyo tan way kaaga wanaagsan tahay kii halkan ka dhacay taa waxaan u leeyahay faa'iido uu ka faa'iido badan yahay mar walibana risk intriga treatage-kaaga inaad ka qaadato waa inaysan cabsi kaa hor istaagin taa waa muhiim 30 bip inaad stop bip in aad ku stop garayso 200 oo bip waxay noqonaysaa ilaa low waaga inaad la socoto marka 160 bip taana waxay noqonaysaa marka inay kaaga faa'iido badan tahay kaagana wanaagsan tahay markaad hesho large correction-ka markaad hesho risk intrigiisa inaad qaadato treatage-ka aad iyo aad ayuu faa'iido u leeyahay JPP USD jihada sell-ka JPP JPY ayadana jihada sell-ka ayaan ka raadinaynaa Euro USD sell sidoo kale USD CHF buy AUD NCD sell inaad la socotaan ayaan rajaynayaa Euro USD ayaan ayadana AUD USD ayaan fiirinaynaa oo aan isla tegaynaa AUD USD maxaan halkan ka aragnaa meeshan waxaan arkaynaa double top-keena in wax yar cirifka lagala baxay ee week ahaan loo jibiyey week ahaan ha loo jibiyo laakiin marka uu jibinayo double top-ka siyaabaha uu ku jibiyo iyo wax waliba ayaad ogtahay impulsive haddii uu ku jibiyo risk inaad sugayso haddii structure ahaan loo jibiyana in uu soo dhammaystirayo treatage-ka corrective ahaan haddii loo jibiyana impulsive-ka inaad sugayso kadibna flag aad qaadanayso balse muhiimadda waxay tahay meeshan waxa ku jiro ayaa ah haddii daaya waxaan ku yiri waxaa laga yaabaa istiraatiijiyad kale in aad ka timid oo aad maxay ahayd qaabab kale aad ku trade garay jirtay oo micnaha in halkan aad soo qaadato trade lane-kaaga kadibna inta aad saarto oo aad haysato 1 2 in halkan hadeertan la retrace in uu halkan ku sameeyo retrace maadaama uu jibiyey istiraatiijiyad aad isticmaalaysay ah noocan oo loo trade gareeyo maadaama bulshada meesha ay ku badan tahay wax qof waliba iyo wuxuu isticmaalayana waan ku ixtiraameynaa balse waxaan mar waliba dhiibnaa caddayn ah itus oo itaabsi sidaas darteed 1 2 3 haddii aad halkan oo kaleeto uu jibiyey oo aad markii saddexaad in uu jibiyey aad fiirinayso oo double top-kan annaga aan ku trade garayno batatan buu xisaabta kugu jirin halkan retrace in uu yahay kadibna aad buy fiirinayso aad leedahay batatan basuuqii buy ayuu halkaas aadi doonaa oo qaab noocan oo kaleeta istiraatiijiyadaada iyo qaabka aad ku fikiraysid halkan wixii ka dhacay ayadana muhiim ayuu ku yahay mar waliba behavior lacagta ay leedahay waxa aad ku trade garaynayso iyo waxa ay samaynayso ayadana muhiim ayuu ku yahay mar waliba in aad indhaha kala qaado aad ay muhiim kugu tahay marka meeshan waxaan haysanaa sidoo kale 3 taabasho ayaan haysanaa haddaan structure-kan tirno batatanba waxaan arkaynaa in aan 1 2 3 in aan jibinay ayaan arkaynaa impulsive aan in aan u jibinay retrace in uu yimid marka in uusan buyga imaan haddii aad qaab noocaas oo kaleeta tii hadda aan kuu sheegayo kale laakiin suuqu uu wato in uu marka jihadii seelka ahayd uu soo aaday waayo marka adiga aad ku khasaaraysaa halkan haddii uu stop loss kaaga yaallo istiraatiijiyadan horey aad u isticmaali jirtay oo kale in qaababkan support resistance ama dadka trade lane-ka iska dhex mariya price-ka ee dhahaya dhow resistance garay doonaa kadibna uu bixi doonaa oo kale stop loss-ka halkan aad kala kulmayso waxyaabaha ku khasaarin jiray waxaas oo dhan waa wax aan annagu ognahay oo aan ku bari doono cilmigeeda waxa sababaya mar walibana structure-ka in aad fahanto wax uu suuqa soo dhammaystirayo iyo suuq halka uu tagayo iyo meesha uu kasoo laabanayo aad ay muhiim u tahay maxaan ka filaynaa marka AUD USD taa behavior lacagta waxaad ka fiirin kartay iyo xaaladihii ay soo martay waxaas ay inaan ka update gareeyo balse muhiimadda waxay tahay intriga hor yaallo fursadan hor taallo iyo waxa aan ka filayno maxay tahay 1 hour-ka ayaan tegaynaa balse aan intrigeena u helno hal la jibiyey double top-kaaga laakiin double top-kaaga maxaa loo jibiyey double top-kaaga structure ahaan ayaa loo jibiyey
ha fiirinin kaliya candlekaas weekga ah balse weekgaas candleka ah wuxuu soo dhamaystiraya oo structure ayuu soo dhamaystiraya waxaan arkaynaa 1 2 3 inaan haysano halkaan 1 2 halkaan inuu ku galay correction meeshaan intrigaada sidoo kale inaad ka qaadan karto meeshaan in ay tahay corrective lugtaan in loo tagay oo kaliya marka aad tegayso top of the structure ama marka aad joogto dailyga aad ku filter garaynayso price-ka fiiri corrective-kii suuqa qaabka uu ku tagay fiiri 80% halkan haddii ay noqoto corrective candlekan kaliya volatility-ga wax micnaha uu samaynayo markaa ma jiro sababtoo ah corrective-kan ayaa ka awood weyn weekgaas kaliya ee price-ku muddo cayiman intuu tagay kadibna soo laabtay annagoo og weliba inuu tritage-kiisa structure-ka ah soo dhamaystirayo sidaas darteed halkaas intrigaaga waa ka qaadan kartaa waa meer advance haddii aad tahay aad ka qaadan karto haddii meeshaas ay kugu dhiban tahayna ay tahay wax aan kugu dhamaystirayno waxa aan sugayna hadeertaana waxay tahay inaan helno halkaas kadibna aan kasoo seel garayno price-ka meeshaas haddii uu noo tago qaab noocaas oo kaleeta in aan usoo seel garayno AUD USD haddii aan ka helno intrigeena nooca inaan ka seel garay doono marka intaa AUD USD ayaan ayadana ugu gudbaynaa waxaan tegaynaa lacagta xigta iyo fursadda aan ka arki karno USD CAD diyaar ma aha ayadana CAD JPY sidoo kale Euro JPB sidoo kale marka waxaa idiin furayaa adinka iyo lacagaha aad doonaysaan marka inaan idiin analyze gareeyo marka waxaan fiirin doonaa NCD CAD JPY Euro AUD waa fiirin doonaa ayadana CAD JPY diyaar maaha CAD JPY ilaa arbacada in la sugo waa muhiim u baahan tahay ilaa talaadada way isdhamaystiri doontaa sidoo kale marka beeshin in aad noqoto lacagta in aad sugto aday muhiim ku tahay suuqa berri inaan galaan rabaa oo aan lacag ka sameeyo $100,000 ama $10,000 ama wax uun inaan ka sameeyo taa muhiim maaha muhiimaddu waxay tahay lacagtu intri ma leedahay ma ku habboon tahay oo ma geli karaa taa ayaa muhiima degdega inaan iska joojisaana aad ayay muhiim u tahay waxaan tegaynaa marka CAD JPY oo aad doonaysaan in aan fiirino CAD JPY waxaan arkaynaa in halkan sidii JPY oo kale lacagaha oo JPY la socdaan lacagaha JPY la socdaan sell ay aadi doonaan taana waa message-ka ay na siinayaan dhammaantood inay isku structure yihiin ayaan arkaynaa meeshan waxaad arkaysaa wixii aad ku soo aragtay JPY oo ahayd head and shoulder-ka halkan ay lacagtu ka samaysay meesha ay hadda taagan tahay qaab noocan oo kaleeta falaagaaga haddii aad u heshana waa meel aad intrigaada ka qaadanayso oo jihada selka qaab noocaas oo kaleeta aan u raadinayno USD JPY idana waa la mid lacagaha oo JPB lacagaha ay u dambeyso JPY waa jihada selka ay ayaguna ku socdaan marka Euro AUD ayaan fiirinaya ayagana Euro AUD waxaan daily-ga tagno Euro AUD waxaan arkaynaa in double bottom-keena iyo ray lane-keena meesha iska qabteen in uu lacagtii tagtay kadibna uu yimid qaab corrective aynay ku socoto waxa aan fiirinayno waxay tahay lacagtii in la push gareeyo tagta halkan corrective-kan meeshaan la siman oo double top-kaaga ah in aad kasoo seel garayso haddii aad u hesho corrective ahaan in aad u hesho ama in price-ku u yimaado qaab noocan oo kaleeta steep flag ahaan in ay u tagto in aad hesho 1 2 3 ray lane-kaaga oo kaleeto inaad halkaas saarto qaab noocaas oo kaleeta laakiin mar weliba waxaa isbedeli doona haddii aad ka raadinayso halkan in uu price-ku u kala barmo oo jihada bayda aad ka raadinayso Euro AUD waxa kuu confirm garayn karaa kugu hagi kara in aad u gashaa waxay tahay aniga price-ka isagoona halkan ka kormarin bataatanba ma xiisaynayo ama ma geli doono Euro AUD in aan u qaato jihada bayga waa in uu dhaafo ama ka kormaro halka taa waxaan kala jeedaa Euro AUD haddii ay halkan price-ku halkan madaxa kala baxo taa waxay ka dhigan tahay marka in aan qaban karo impulsive aad u weyn in aan qaban karo marka muhiimaddu waxay tahay halkan in aadan ka qaadanin wax aadan hubin lacag aadan hubin in aadan ka qaadan for example hadda impulsive ayaad haysataa meeshan haddii aad correction noocan oo kaleeta ka hesho meeshan mini double bottom ay noqoto qaabkan oo kale waa qaab aad aamini karto ilaa iyo waxaad aamini kartaa oo aad la socon kartaa halkan aan kugu sheegay in aad ray lane-kaaga dhigto qaabkaas markaas aad u tagto haddii aad hesho retrace iyo haddii kaleba
balse euro AUD mid watchlistigeena ama wildcastigeena nagu jirto oo aan fiirinayna damaha balse qaabkiis ku dhamaystirta ayaan arkaynaa fursadii ka muuqatana groupka telegramka waa kaala wadaagi doonaa duu ilaa yiraahdo marka waxaa dhiman 5 daqiiqa oo zoomka dhiman balse aan fiirino euro CHF euro NCD gold waan fiirinaynaa euro NCD euro CHF iyo gold Nasdaq intaas afartaas aan isla fiirinaynaa kadibna 5 daqiiqo inaan afartaas ku falanqeyno ayaan isla qaadanaynaa insha Allah Nasdaq 100 ayaan ka bilaabeynaa Nasdaq waxaan arkaynaa in ay ayadu structure ahaan u jabisay hadaaye waxa aan kuu soo sheegay waxa ay ahayd double top-kaaga mar waliba oo la jabiyo waxa loo jabinayaa qaab adiga inaad aqoon u yeelato ay muhiim tahay waxa daay farshaxan aan kuu soo sawiray halkan ayaad ka arkaysaa ayadii oo live ah hadii aan tiro waxaad arkaysaa in loo jabiyay double top-kaaga structure ahaan in loo jabiyay oo corrective ahaan aan loo jabinin impulsive ahaan aan loo jabinin marka price halkan wuxuu soo dhameystirayaa naqshad 1 2 3 ah waxa aan hadda fiirinayno iyo entry-geena qaabka u qaadanayna waxay tahay in aan helno flag in aan ka helno Nasdaq jihada selka ay aadi doontaa balse entry-gaaga qaabkaad u helaysid fiiri qaab noocan oo kale tahay flag hadii nagu sameeyso large flag oo kale way isdiyaarinaysaa waana qaadan doonaa balse suuqa ha furmo sida uu suuqa ku furmo iyo wajiga uu nasiyo ayaan isla fiiri doonaa ayadana Nasdaq qaabkaas ayaan ka fiirinaynaa waxaan tegaynaa dahabka asagana iyo fursadaha hor yaallo oo aan ka fiirinayno aan tagno dahabka waxaan soo sharaxnay asagoo ku sugan middle sectionkaas oo aanan dhameystirin in aan imaan doono double bottom-kan uu duuban yahay asagana dabcan waxaan fiirinayno waxay tahay high value areas ama high probability area oo ah meel uu tegay xilli hore amaba aad arki doonto hadii aan zoom gareeyo waqtiga uu tegay waxaan arkaynaa halkan weekly-ga hadii aan tagno si nadiif ah in sanadka markuu ahaa 2012 in uu halka double top-kaas inuu soo dhameystiro marka structure-kan hadda uu ku sugan yahay hadii uu double top-kaas soo dhameystiro taa waxay noqon doontaa area high probability ah oo faa'iido badan oo weyn laga sameyn doono ilaa iyo lowgeena kaliya corrective meesha uu ka bilowday waa 3500 ilaa iyo lowgeena waa 6000 marka waan fiirinaynaa balse muhiimadda waxay tahay qaab noocee ah ayuu tagi doonaa meeshaan possibility iyo probability intuba way ku jiraan balse possibility-ga waxa keenaya waxay tahay in 1 hour hadii aan tagno lugta labaad marka uu price ku noqonayo middle sectionka lugta labaad hadii ay corrective noqoto oo marka running journalka waxa idin markuu sell soo aadayo uu ku sugan yahay price ku top of the structure ama middle ka ha joogo lugta labaad ascending ahaan ayuu u sameeyaa oo corrective ayay noqotaa halka ayaan risk entry ka soo qaadanaa marka uu joogo lowgana descending ahaan ayuu sameeyaa oo qaabkaas ayaan buy ugu qaadanaa meesha marka middle section kan cashir muhiim ah ayaa duuban oo asagana aad fahmi doonto in uu leeyahay possibility iyo probability ah middle sectionka asagoona soo dhameystirin double top-kiisa oo ah meeshan hadeertaan ray line-ka uu noo saaran yahay oo kale asagoona soo dhameystirin in uu halkan selka aadi karo uu selka aadi doono balse structure-ka guud waxa uu na tusayo ayaa waxay tahay dahabka in aan double top-keenaas in aan ka soo seel garay doono dahabka uu buy ku sii socon doono ilaa iyo jihadeenan in aan tagi doono ray line-ka iyo trade lane-ka meesha iska qabtaan oo tritage-ka hadii aad hesho oo ku update garaynayna waana fiirin doonaa waa la soconaa dahabka meeshan waxay noqon doontaa high value area aan ka seel garay doono halkaas ayaan uga baxaynaa 4 daqiiqo ayaa dhiman ayadana aan ku soo gabagabayno euro CHF inay ahayd ayaan jeclahay lacagtii kale oo aan falanqayn lahayn lacagtan halkan iyadoo maraysa ayaan idin soo dirnay dhammaantiin waa ka wada faa'iideen ilaa iyo trade lane-keena waxa aan ku sugannahay gabi ahaanba lacagtan iyo waxa isku mid ah euro JPY waxa ay sameynayaan labadooda waxaad u malaysaa in ay isku yihiin structure in ay yihiin balse meeshaan large double bottom-ka meesha ay ka samaysatay euro JPY ayaan arkaynaa halkan inaan ka haysano mini double bottom mar waliba waxa aan sugno corrective-ka marka suuqa uu yahay hadii aad risk entry ka qaadanaynin ayaa waxay tahay inaad heshid
impulsive-ka koowaad waxaan idin iraado mar waliba suuqana mar waliba waxaad ku aragtaan in wixii la sheegay wax rasmi ay yihiin oo aad arki karto mar waliba impulsive-ka markuu yimaado correctionkaas ayaad waxaad ka helaysaa intrigaada kadibna si walwal la'aan ah adigoo capitalkaaga ilaalsaday ayaad impulsive-kan ku qabanaysaa gebi ahaan baa dartan waxaan samaynay retrace waxa aan sugaynaa dartan waxay tahay flag in aan helno flagaasna markaas aan downside usoo qaadano jihada selka balse aan fiirino baatinka 4 hour-ka iyo sidaan intrigeena baatinka si aan u aragno iyo 1 hour-ka bal intrigeena sidaan uga raadin lahayn euro chf aniga dartan iguma jirto lacagaha aan toddobaadkan isha ku hayo balse haddii aan entry ka helo waan qaadan doonaa qaab noocan oo kaleeta in double button halkan igu samaysato kadibna baxdo halkaas aan ka helo flag noocan oo kala markaas taa waxay noqonaysaa in aan halkaa ka seel garayno euro chf haddii aan intaas ka waayo waxa aan xiisaynayo mana aha wax hadda aan isha ku hayo balse haddii aad fiirinayso euro chf qaabkaas waa fiiri okay saaxiibayaal intaasaan kusoo gabagabeynaynaa hal daqiiqaaba dhiman marka waxaan rajaynaynaa in insha allah waxa soo socdo aysan noqon doonin wax macnaha idheh ama waa la yiriya wax rasmi ah oo waxaad heli doontaa aadan ku helin meel kale waxaad heli doontaa waxyaabo badan oo aan annagu hankaaga iyo hadafkaaga aad lahayd aad ku guulaysan doonto oo aadna berri aad dhihi doonto maalin qayr qabta ayaan walaalahaas helay marka cilmi in aad hesho ayaa muhiim ah mar waliba cilmigaada oo aad dhisto kalsoonidaada ayay kor u qaadaysaa suuqan adiga haddii aad doonayso in aad ka madax bannaanaato cid kale in aad trade aid qof uu leeyahay aad ku shaqayso waxaa muhiim ah macallinkaaga lacagta uu leeyahay waan geli doonaa xataa in adigu aysan noqonin keliya mid aad fiiriso ee adigu aad leedahay wax aad ku kalsoon tahay oo aad analyze garaysay qaabkay u shaqaynayaan inaad aragto si bal aad u xirowdo lacagaha aad falanqaysatay marka la falanqaynayo oo macallinkaaga falanqaynayo iyo marka aad adigu falanqaynaysaba labadaba waxa ay ku kala duwan yihiin iyo meelaha ay ku kala duwan yihiin inaad fiiriso kadibna inaad iska dhisto muhiim ayay ku tahay marka 3 bilood ayaa waxaan leenahay koorso 3daas biloodna waxaan rajaynaa in laga wada faa'iideysto walaalaha dhan ay ku wada faa'iideystaan saaxiibayaal caafimaad iyo khayr ayaan rajaynaya dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intriga aan helno ugu habboon iyo lacagaha markaa intriyada samaynayna qolka publica telegramka ayada kula wadaagi doonaa macallimiinta iyo coacheskana ayagana waa ready insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu